gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa waxa uu xalay kormeeray saldhigyada ciidanka booliska iyo isgoysyada magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa kormeerka waxa ku welinayay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Bashiir Cabdi Maxamed. Kadib kormeerka ayaa gudoomiyaha waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo ciidanka booliska Soomaaliyeed uga mahad celiyay siday u sugayaan amniga magaalada Muqdisho, waxaana ka codsaday inay sii laban shaqada ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka hadlay dil xalay ka dhacay degmada Xamarweyne isagoo sheegay in dad badan loo soo qabqabtay dilkaasi isla markaana laamaha amniga ay ku hayaan baaritaano. kormeer aan ku soo marnay magaalada qaybaheedii kala duwan waad arkayseen xafladii markaan ka soo baxnay 8 Maarso ilaa hadda oo 15 daqiiqo ah waxaan ku jirnay kormeerkaas isaga ah. ujeedaduna waxay inaan u kuur galno xaaladda amniga caasimadda. waxaa kaloo iyadana jirta oo caawa aad ugu faraxsannahay dhammaan goobihii aan tagnay in ciidan booliis ah oo diyaarsan oo shaqaynaya ay joogeen oo aan shacabka Soomaaliyeed u sheegayno in ciidanku ay 24 saac heegan yihiin u taagan yihiin ilaalinta amniga iyo nabadeynta. sidoo kale caawa iyadana shaqaaqo yar oo ka dhacday degmada Xamarweyne waxaan aad uga mahad celinayaa taliyaha iyo ciidanka booliiska sida degdeg ah ee looga jawaabay isla markaana dhammaan dadka la soo qabtayna ay ku socoto baaris. waxaa kaloo iyadana xusid mudan ciidanka CID-da loo yaqaano ama baarista dambiyada inay goobihii aan tagnay ay joogeen ay howl ku jireen saacadan iyada ah oo saqdhaxa ah, taasna ayna tusayso ciidanka inay har iyo habeen u taagan yihiin inay badbaadinta shacabka. falkaas ka dhaca Xamarweyne ciidanku isla markiiba go'aan waxay qaateen fal deegaanka uu ka dhaco in isla markiiba jawaab degdeg ah laga bixiyo si loo soo helo dadkii ka dambeeyay. baaristaas markay dhamaatana ayaga ciidanka ayaa nala wadaagi doona booliiska, laakiin waxa caawa noo ballan qaadeen in meel kastoo fal ka dhaco sidii hore ma jiri doonto, waxaa jiri doonto isla xisaabtan isla markaana bulshada loo adeegi doono. shacabkana marka waxaan ka codsanaynaa uguna baaqaynaa inay nagala shaqeeyaan amniga iyo sugiddiisa. maalmahan annaga waxaan wadnay maamul gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga inay si dhow wada shaqeyna u yeeshaan oo gudoomiyaasha degmooyinka iyo taliyayaasha degmooyinka ee booliiska iyo nabad sugidaba ay si dhow u wada shaqeeyaan. tiina waxaad moodaa in isbuucan ay howlaha wadeen in amniguna soo roonaanayo. shacabkaan rabnaa marka kaalintooda inay qaataan amniga caasimadda waa inaan suganna annaga. ma dhici karto Hargeysa iyo Garowe inay nabad tahay Muqdisho nabad noqon weyso. shacabka Muqdisho jooga waxa laga rabaa magaaladan siday nabad ku noqon lahayd kaalintooda inay ka qaataan. Nasteex Cabdulqaadir Xasan, Galsan TV, magaalada Muqdisho.